wargeyska caanka ee ka soo baxa gudaha dalka Spain ee Don Balon ayaa tilmaamay in kooxda Man City ay doonayso adeega daafaca kooxda Inter Milan ee Skriniar. Hogaamiyaha Man City Pep Guardiola ayaa muddo dheer bartilmaameed ka dhiganaya daafican caalamiga ah ee xulka qaranka Slovakia. haddaba kooxda Man City ayaa qorsheynaysa in lacag rikoodh ah ay hordhigto Inter, waana qiimo gaarsiisan 94 milyan. Skriniar ayaa kusoo biiray kooxda Inter Milan sanadkii 2017 isagoo kasoo hayaamay dhinaca iyo kooxda Sampdoria, waxaana lagu tiriyaa inuu qeyb ka yahay daafacyada ugu fiican kubadda cagtan ee waqti xaadirkan. 24 sano jirkan ayaa sidoo kale waxa uu qorshaha ugu jiraa marka laga tago kooxda Man City, kooxaha Manchester United iyo Barcelona. Skriniar ayaa xil ciyaareedkan kooxda Inter Milan u ciyaaray 28 kulan dhammaan tartamada, 2357 daqiiqo ayuuna ku sameeyay kaliya hal caawimaad.